duleedka waqooyi ee magaalada Buuhoodle waxaa maanta si diiran loogu soo dhaweeyay wasiirka wasaaradda arrimaha bulshada Faarax Cadde Faarax oo ka soo kicitimay dalka Mareykanka isla markaana maanta soo gaaray deegaankani Buuhoodle. wasiirka ayaa waxaa si hagar la'aan u soo dhaweeyay guud ahaan dadweynaha ku dhaqan magaalada Buuhoodle iyadoona ay ka hortageen meel ilaadi u jirta 15 kiiloomitir magaalada Buuhoodle. dhinaca kale waxaa soo dhaweyntan qayb ka ahaa xildhibaanada golaha deegaanka oo ugu horeeya gudoomiyaha golaha deegaanka Maxamuud Cali Faarax Dhagabro. wasiirka ayaa waxaa loo soo galbiyay dhinaca magaalada Buuhoodle isagoona shacabka kula hadlay meel fagaara kana warbixiyay socdaalkiisii uu ku soo gaaray deegaankani Buuhoodle. wasiirkan ayaa waxa uu ka mid yahay golihii wasiirada ee uu dhawaan ku dhawaaqay madaxweynaha maamulka Khaatumo Cali Khaliif Galeyr isagoona la magacaabay isagoo ku sugan dalka dibadiisa. ugu horeyn waxa halkaas ka hadlay Faarax Cadde Faarax oo isagoo ah wasiirka arrimaha bulshada ee maamulka Khaatumo waxa uu u mahadceliyay guud ahaan dadweynihii halkaas ku soo dhaweeyay. dhinaca kale waxa iyaguna halkaas ka hadlay qaar ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka. Bismillahir Rahmaanir Rahiim. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. waa idin wada salaamaya dhamaantiin. mahad dhamaanteed Ilaahay bay u sugnaatay. waxaan ku faraxsanahay aad iyo aad sida waxaana aad ii soo dhaweyseen safar aad u dheerna waan ka imi waana ku faraxsanahay soo dhaweyntan qaaliga maanta aad ii sameyseen. annaguna kulli hadaanu wasiiradii aanu nahay waxaanu ballan qaadi doonaa insha Allah xilkii naloo igmaday sida naloogu igmaday inaanu uga soo baxno waajibkii aanu lahayn inaanu soo marino insha Allah ta'ala. aanu noqon dad habacsan aanu noqon dad Itaaliyar laakiin waxaanu Ilaahay ka baryeennaa inta naloo igmaday ama nalaga filayo inaanu uga soo baxno insha Allah ta'ala. idinkuna الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عادي عاد بانو فرحسناhay wasiirkana waa soo dhaweynayna bulshada reer Buuhoodle ugu horeeyaan golaha deegaanka mahad gaaran siinaya sida wanaagsan sharafta leh wadaniyada leh ay u soo dhaweeyeen wasiirkoodii. عادي عاد ba mahadsantihiin waxa weeye kulli hawl badan baa inoo taala marka soo dhaweynta galabta waxaynu soo dhaweynaynaa wasiir Faarax. عادي عاد ba mahadsantihiin. ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعده أولا إله بقى مهد له وحنا هالكن كسر دويني راح وسير كاريا بالشدة دولة قبلات كخاتم استضاف صوماليا فارح عدة فارح وأنا كم مهدنا قينا وحنا كم مهدنا بوق شذا والنصاب بوغي وسير كاريمها بالشدة فارح عدة فارح وحنا لا النهاي كسر دوو مجالات هذه قبل كاجي ضد كاجي قبل كعين خاتم استضاف صوماليا ودي السلام يا والسلام عليكم ورحمة الله. bulshada weynta reer Aymeed magaalada Buuhoodle ku nool waxaan halka ku soo dhaweynay wasiirka arrimaha bulshada. waxaa farxad noo ah imaatinka wasiirka ay sababtu tahay waa wasiirkii loo doortay arrimaha bulshada wuxuuna yimi waqtigu ugu haboonayd ee la doonayay inuu maamulka Khaatumo State of Somalia hawsha meeshii kaga goonayd ee loo igmaday uu ka qayb qaato. bulshada sharafta leh ee isugu timid wasiirka soo dhaweyntiisa. wasiirka waa soo dhaweynaynaa wasiir soo dhawow waa dalkaagii waa dadkaagii waa diintaadii waxaanu leenahay kiina anfaca Allah ka dhigo wasiirkan dooranow kiina deeqan noqo diinta sharafkeeda kiina ugu daryeelan noqo dadkii kala baaday kii wada daweeyay noqo danteennii kala qumeed ka isla doonta noqo annama